ku soo dhawaada muuqaalkan oo aan kaga hadli doono qaababka iyo siyaabaha kala duwan ee aynu u bixino 24 saacadood. marna ma ku fikirtay inaad xisaabiso ama inaad ogaato halka ay ku baxaan saacadaha aad haysato maalintii iyo habeenkii? qof walba waxa uu haystaa 24 saacadood habeen iyo maalin. sida intan loo maareeyo ayuu mustaqbalkuna u ekaadaa. ma jiro qof haysta in ka badan intaas ee sida loo kala bixiyo ayaa kala gedisan. haddaba aynu u ogolaano xisaabta iyo tiradu inay ka qayb qaadato nolosheena caadiga ah si aynu markaasi u garanno ama ugu yaraan u qiyaasi karno halka aynu ku bixino saacad kasta oo nolosheena ka mid ah. si aynu markaas u xisaabin karno saacadeennu halka ay ku baxaan waa inaynu tusaale u soo qaadanaa qof u isticmaalay waqtigiisa qaabkan soo socota: 6 saacadood hurdo, 6 saacadood waxbarasho, 4 saacadood waxa uu ku bixiyay qofkani shaqo, 2 saacadood waxa uu ku bixiyay cunto oo tusaale ahaan 30 daqiiqo quraac ayuu ku bixiyay, 1 saac uu qadaynayay, 30 daqiiqana waxa uu ku bixiyay casho. 4 saacadood waxa uu ku bixiyay mobile computer TV iyo wixii la mid ah. 2 saacadood waxa uu ku bixiyay gaadiid uu sii saarnaa ama uu soo saarnaa, asxaab ama hawlo kale. cimriga qofku waa inta u dhaxaysa 60 ilaa 70 sano haddaan ka horba la oofsan. inta dhaafta cimrigaasina waa ay iska yar tahay. haddaynu qaadano 60 sano si aynu markaas u ogaano inta hurdo ku baxday, waxaynu odhanaynaa 6 loo qaybiyay 24 oo lagu dhuftay 100 oo la mida markaas boqolkiiba 25. si kale 4 meelood oo meel 24kaagii saacadood waxa ay ku baxday hurdo. guud ahaan cimriga qofka si aynu u ogaano inta hurdo ku baxday, waxaynu odhanaynaa 1 oo loo qaybiyay 4 oo lagu dhuftay 60 sano oo markaasi la mida 15 sano. taa micnaheedu waxay tahay 15 sano oo xidhiidh ah waxa ay ku baxeen hurdo. ugu dambayn waxaan rajaynayaa inaad fahantay. 15 sano oo xidhiidh ahi waxa ay ku baxeen hurdo, halka ay 15 sano oo kale oo xidhiidh ahina ay ku baxeen waxbarasho. 10 sano iyagu waxa ay ku baxeen shaqo, halka ay 10 sano oo kalena ku baxeen internet, TV, computer, mobile iyo waxyaabo la mid ah oo la isticmaalayay. bal hadda qiyaas 10 sano oo xidhiidh ah oo ku baxday TV la daawanayay amaba computer la isticmaalayay. 5 sano waxa lagu dulqaatay cunto, halka 5 sano oo kalena lagu qaatay gaadiid la saarnaa amaba asxaab waqti la qaadanayay iyo wixii la mid ah.